بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعن أو ناكسن داوديال هالكن أو warbaahinta Kaahiye Media kusoo dhawaada warka kooban ee Kaahiye Media qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya mid kamid ah nabadoonnada ugu caansan deegaanada maamulka Puntland oo lagu toogtay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo war ka soo saaray nabadoonka lagu dilay deegaanada maamulkaasi kuna tilmaamay hal door ka dhex muuqanaya deegaanada Galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo soo magacaabay guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta deegaanada Galmudug howlgal xoogan oo saaka ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo soo magacaabay qaar ka mid ah gudoomiyaasha hogaaminaya deegaanada maamulkaasi akhbaraadka dibadda ee warka kooban ee Kaahiye Media aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dowladda dalkaasi Mareykanka oo sheegtay in ay ka joojinayso dowladda dhigeeda ay Turkiga hubka F-35 oo ay u sameeynayso markala daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Kaahiye Media hadii aad ku cusub tahay kanalkan ha mogaanin aad saarto subscribe sidoo kale aad like dhahdo share na dulada saaxiibadaasi aad ula wadaagto ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo inta hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya nabadoon caanka ah deegaanada Galmudug oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa magaalada Gaalkacyo koonfurteeda lagu toogtay Allah u naxariistay mid kamid ah suldaamada ugu caansan deegaanada maamulkaas oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxa la soo sheegaya in dable ku baysan bastoolada ay dilka ka dambeeyeen ninkan ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa dadka soo xulay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maalmo ka hor xarakada al-shabaab ayaa 45 maalmood u qabtay in deegaanada al-shabaab ay maamulaan ay ku yimaadaan dadka soo magacaabay xildhibaanada golaha shacabka iyadoo ninkan oo kamid ahaana lagu toogtay habeenkii xalay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafna waxa uu ka hadlay nabadoonka lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug kadib war qoraal uu soo saaray madaxweynaha maamulka Galmudug waxa uu sheegay inuu si weyn kaga xun yahay dilka loo geystay nabadoonkaas isagoo intaas ku sii daray in uu dadka indhaha u ah in la toogtay marnaba ogolaan doon waxa uu sheegay in cadawga ay ku soo duuleen dadka nabadoonnada iyo dadka indhaha u ah shacabka deegaanada Galmudug waxa uu tilmaamay in uusan maamulkiisa u adkeysan doono isla markaana uu ka hortagi doono guud ahaanba falalkaasi guracan ee lagu beegsanayo dadka magaca ku dhex leh deegaanada maamulka Galmudug dhanka kalena wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay guddiga qabanqaabinaya dib u heshiisiinta deegaanada Galmudug ka dhacaysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriya ayaa waxa uu soo saaray guddi ka kooban 12 xubnood kuwaas oo ka soo kala jeeda 12 beelood ee deegaanada maamulka Galmudug taga kuwaas oo sida la sheegay ay weelinayso xubin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha waxayna guddigan qabanqaabin doonaan dib u heshiisiinta ka dhici doonta deegaanada maamulkaasi 12 xubnood ayaana waxa ku kala jira dad kala duwan kuwaas oo hogaaminayo Cabdiraxmaan Baadiyo oo ah xildhibaan ka tirsan iyo sidoo kale aqoon-yahan ku dhaqan deegaanada Soomaalida ugu dambeyntiina saaxiibayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa soo magacaabay gudoomiyaal ka arriminaya gobolada deegaanada maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa gudoomiyaal cusub u magacaabay gobolada Sanaag iyo Highland sidoo kalena wuxuu magacaabay maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka garoonka magaalada Boosaaso kadib wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaana lagu magacaabay waxaana sida la sheegay aqoontooda dadkan markii uu darsay kadib in uu mudane Axmed Maxamuud Xaaji Yuusuf u magacaabay maareeyaha garoonka diyaaradaha Boosaaso sidoo kale Cabdi Xamiid Yuusuf Muuse ayaa loo magacaabay maareey ku-xigeenka garoonka diyaaradaha ee Boosaaso guud ahaan saaxiibayaal waa inaga intaa warkii koobnaad ka daawanayseen warbaahinta Kaahiye Media hadii aad ku cusub tahay kanalkan ha mogaanin inaad saarto subscribe sidoo kale aad like dhahdo share na aad u dhahdo saaxiibada tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo